habeen wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka caawiya caalamka waxaan ahay Farxaan Maxamed Jimcaale qodobada wararka ugu waaweyn waxa ay kala yihiin danaha Mareykanka ayaa koow ah madaxweyne Trump ayaa sheegay in uu garab taagan yahay Sacuudi Carabiya oo lagu eedeynayo dilkii Jamal Khashoggi warbixin dheeraad ah ayaanu idinkaga haynaa qodobada kale caawana waxa kamid ah dalka Afghanistan waxa maanta loo baroor diiqaya ugu yaraan 55 qof oo lagu dilay qaraxii shalay ka dhacay magaalada Kabul waxaa jira dadaal cusub oo lagu soo afjaraya dagaalka Yemen iyadoo hay'ad samafal ay ku qiyaastay 85,000 oo caruur ah in ay gaajo u dhinteen tan iyo markii dagaalku bilowday waxa kale oo barnaamijka caawaan idinku haynaa qalab taariikhi ah iyo muuqaallo gacanta lagu sameeyay ee dhismooyinkii qadiimiga ahaa ee magaalada Hargeysa lagu soo bandhigay kala soco BBC News Somali telefishinka raadiyaha online-ka iyo baraha bulshada halkani waa London barnaamijkuna waa caawa iyo caalamka madaxweyne Trump ayaa cadaadis kala kulmaya xisbigiisa jamhuuriga iyo kan dimuqraadiga xubnahooda ka tirsan guddiga xiriirka arrimaha dibadda waxay warqad u qoreen madaxweyne Trump oo ay markaasi ku weydiisanayaan in uu ka fiirsado in Amir Mohammed bin Salman uu mas'uul ka ahaa dilkii Jamal Khashoggi waxay u qabteen in warqadda uu uga soo jawaabo 120 maalmood gudahood Senator Bob Corker ayaa boggiisa Twitterka waxa uu ku soo qoray in ay sharciga cusub u dhigayo in madaxweyne Trump looga baahan yahay in uu go'aan ka gaaro in Mohammed bin Salman uu mas'uul ka ahaa uu guddiga kula soo noqdo go'aan cunaqabatayn haddaba Sacuudiga ayaa qirtay in Mr Khashoggi lagu dhex dilay qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul balse waa ay beeniyeen in dhaxal sugaha uu ku lug lahaa dilkiisa laakiin caalamka ayaan wali aqbalin sheegashada Sacuudiga iyadoo taasi ay jirto ayaa madaxweyne Trump waxa uu ka fogaaday eedaynta Mohammed bin Salman CIA-da ayaa baartay ma hayaan wax dhammaystiran waa suuragal inuu sameeyay ama in uusan samayninba haddaba haddii madaxweyne Trump cadaadis lagu hayo maxaa isna loo saari laayahay Amir Mohammed bin Salman sideese dadka waddanka Sacuudi Carabiya arrintani u arkaan waryaha BBC-da Liz Duset oo Riyadh ku sugan ayaa sharaxaysa Here in the kingdom, many Saudis are asking, and many say they don't believe halkan boqortooyada Sacuudiyiin badan waxay ku sheegayaan inaysan aaminsanayn in amiirkooda uusan amrin ficilkan xun kuwa badanna waxay ii sheegeen inay aad uga careysan yihiin in dilkan arxan darrada ah uu noqonayo su'aal ka lulata boqortooyada ay si shakhsiyadeed ku lamaanaan doonto muddo sidoo kale in madaxweyne Trump uu shaki geliyo oo uu dhaho waa suuragal inuusan samayn ama sameeyay ee ku saabsan ku lug lahaanshaha dhaxal sugaha macnaheedu wuxuu yahay inay muddo sii jiitamayso waddanka Afghanistan waxa ka bilaabmay maanta maalin baroor diiqa kadib markii qarax lala beegsaday madal ay culamaa u diin ku xusayeen dhalashada nabiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee magaalada Kabul ugu yaraan 55 qof ayaa ku dhintay boqolaal kalena way ku dhaawacmeen qarax ka dhacay magaalada saraakiisha dambaarayaasha ayaa waxay bilaabeen in ay ogaadaan sida ay wax ku dhaceen iyo cidda ka dambeysay Cabdixaafid Caawil Ismaaciil ayaa ka waramaya munaasabad ku bilaabatay xusidda dhalashada nebiga nabadgelyo naxariiso korkiisa ha ahaatee waxay ku dhammaatay dhimasho iyo burbur culimaa awdiin badan oo ka soo qayb galay xuskan ayaa qarax lala beegsaday magaalada Kabul waa in yar kadib markii qaraxu dhacay sawaxan qayle iyo cabsi ayay isu beddeshay Taliban markiiba waa ay dafireen inay ka dambeeyeen waana cambaareeyeen weerarka laakiin dambibaarayaashu waxay sheegeen in ay lug ku lahaayeen meesha inaan laga saari karin ciddii weerarkan culimada lagu qaaday ka dambeysay waxay bulshada ku abuurtay caro iyo naxdin شما در عمرتان نشنیدین که بالای میلاد پیغمبر حمله شود میلاد پیغمبر in la soo weeraro madasha lagu xusayo dhalashada Nabi Muhammad alayhi salatu wasalaam waa wax bini'aadanimada ka baxsan qof bini'aadamahi kuma kaco waxan oo kale dadka ka dambeeyay weerarkani waa cadowga Ilaahay cadowga Quraanka
cadowga nebiga iyo cadowga ummadda. دست داره و این کار کرده سخت‌ترین دشمن خدا دشمن قرآن. halkani waa meesha ay dadku u yimaadaan dabaaldegyada iyo xafladaha aroosyada si ay ugaga gabbadaan qaraxyada iyo rabshadaha. waa halkii ugu dambaysay ee la filayey in weerar lagu qaado iyadoo ay booliisku xidheen waddooyinka dadkii waxay isugu tageen cusbitaallada iyaga oo ehelkooda ka eegaya liisaska dhimashada iyo dhaawacyo halis ah ayaa dad badan soo gaadhay waxaa laga cabsi qabaa inay dhimashadu si aad ah u korodho. bal markana aynu eegno qodobada kale ee ku jira wararka caawa ee caalamka. hogaamiyaasha muslimiinta Australia ayaa sheegay inay qaadici doonaan kulanka ra'iisul wasaare Scott Morrison kadib markii uu u sheegay in looga baahan yahay inay wax badan ka qabtaan sidii looga hortagi lahaa weerarada argagixisada. Mr Morrison ayaa soo jeediyay kulankaasi kadib weerarkii ka dhacay magaalada Melbourne bishan horaanteedii oo uu sameeyay qof qaxooti oo muslim ah. maxkamadda sare ee Tajikistan ayaa waxa ay xukun xabsi daa'ina ku riday nin jihadoona oo lagu eedeeyay inuu ka dambeeyay dilka 4 qof oo reer galbeed ah. Hussein Abdusamadov ayaa lagu helay dambiyo argagixiso ay ka mid tahay dadka la laayay ayaa gaari la jiirsiyay iyagoo ka soo noqday socdaal ay baaskiilo ay wateen oo ay ku marayeen qayb ka mid ah waddankaasi. 2 Maraykan ah qof u dhashay Holland iyo mid Swiss ah ayaa ku dhintay weerarka. xarunta gaashaandhigga ee Maraykanka ee Pentagon-ka ayaa sheegtay in ciidanka la geynayo soodinta dalka Mexico ay ku kacayso $72 milyan oo dollar. ciidankaasi ayaa ka hortagi doona soo galootiga sharci darrada ah magaalada Tijuana ee Mexico waxaa hadda ku sugan kumanaan soo galootigaasi ah. hay'adda booliska ee caalamiga ah ee Interpol ayaa u dooratay gudoomiyaheeda cusub Kim Jong-un in uu noqdo oo ka soo jeeda waddanka Kuuriyada Koonfureed madaxweynaha cusub ee hay'addaasi. dhowr dal ayaa walaac ka muujinayay ka hor inta aanay doorashadu dhicin musharaxnimada generaalka booliska ah ee Ruushka u dhashay Alexander Prokopchuk oo isagu ay uga cabsi qabeen in uu aad ugu dhow yahay Kremlinka. ergeyga qaramada midoobay ee waddanka Yemen ayaa lagu wadaa in uu kula kulmo falaagada xuutiyiinta magaalada Sanca taasi oo ah isku daygii ugu dambeeyay ee lagu gogol xaarayo wada hadallo nabadeed oo degdeg ah oo waddankaasi ka dhaca. waana dadaalkii ugu dambeeyay ee Martin Griffiths uu wado kuwaasi oo soo baxaya kadib dagaal horle oo ka dhacay magaalada Xudayda. dagaalka waddanka Yemen ka socday muddada 3 sano ah ayaa horseeday digniinta ah in 14 milyan oo ruux ay macluul ku sugan yihiin. Yaasmiin Axmed ayaa ka waramaysa digniin waxaa ku jira muuqaalada naxdin leh. naazi waa gabar 10 jir oo sakaraad ah 4 la dhalatay ayaa geeriyooday intii isbitaalka loo soo waday waxayna ka mid yihiin kuwa badan oo naftooda ku waayay dagaalkan. 3 sano iyo bar ayuu socday dagaalka Yemen ee u dhaxeeya isbahaysiga Sacuudiga iyo falaagada xuutiyiinta Iiraan taageerayso. halka cuntada gaargaarka ay ka soo gasho oo ah dekada Xudayda ayaa saldhig u ah dadaalka caalamiga ee lagu doonayo xabad joojin balse rajada heshiis ayaa dib u dhac dheeri ah la kulantay toddobaadkan kadib markii uu dagaalka xoogaystay. qaramada midoobay ayaa ku tilmaantay Yemen inay tahay musiibo bani aadamnimo uu aadanaha sameeyay tii ugu weyneed ee adduunka. 14 milyan oo qof ayaa qarka u saaran macaluul in ka badan kala bar waa caruur. Sacuudiga iyo Imaaraadka ayaa ballan qaaday $500 milyan oo dheeraad ah oo wax loogu qabanayo dhibaatada. inkastoo ay yihiin kuwa ugu badan ee Yemen deeqda siiya haddana waa kuwa leh militariga ugu badan ee isbahaysiga sida joogtada ah loogu eedeeyay dhimashada rayidka. waa in dagaalkan dhammaada aan ku cadaadinno xuutiyiinta in ay wada hadallada ka qayb galaan dhabna ha naga ahaato in la gaaro xal siyaasadeed oo nabad u keena Yemen. hadda dhulka waxaa ka socda dagaal. qaramada midoobay waxay ku rajo weyn tahay inay dib u bilaabi karto wada hadallada u dhaxeeya labada dhinac toddobaadyada soo socda. dhismooyin taariikhi ah iyo waliba kuwa kale oo farshaxan laga sameeyay oo qadiimi ah oo la xiriira magaalooyinka Saylac, Buulaxaar iyo Taleex oo si farshaxana loo sameeyay iyo waxyaabo kale ayaa lagu soo bandhigay magaalada Hargeysa. wariyaha BBC-da Sadiiq Maxamed Burmad oo bandhiga ka qayb galay ayaa warbixintan nooga soo diray. xaruntii daraawiishta ee Sayid Maxamed Cabdalla Xasan iyo dhismayaasha qadiimiga ah ee ku yaala Saylac iyo Buulaxaar ayaa ka mid ah farshaxanadan.
dhalinyaro badan ayaa u soo daawasho tagay si ay u arkaan goobaha taariikhiga ah oo ay sheeko uun ku maqli jireen xitaa wiilka dhismahan gacantiisa ku sameeyey weli ma uu arag goobahan waxaase uu ka sii sawiray sawirro laga soo qaaday waxaa iska kaashaday markaa sawir qaadaha Nuur al-Huda oo ah sawir qaadaha soo sawirtay goobahan kala duwan tagtay ama qaybo badan oo dalka kamid ah waxa dib u soo nooleeyay oo iyagoo la taaban kara sameeyay waa hanad arts wiilka la yiraahdo marka yani iskaashiga ka dhasho quruxda ka soo baxda marka iskaashado waxyaabahaas ayaa kamid ah 10 maalmood ayaa bandhigan uu socon doonaa oo dadku ay daawan doonaan muuqaaladan muhiimadda barnaamijkan ka lahayn dabcan waxa weeyaan in ummadda la dareensiiyo muhiimadda ay leedahay hidaheena iyo dhaqankeeni dhismayaashii hore ummaddeena ka tagtay in aynu dhowrano qalcadan maalin kasta oo ay sii dunto taariikhda qayb kamid ah lumaysan waxa kale oo xarunta lagu soo bandhigay agabkii dhaqanka aynu u lahaan jirnay iyo kaydka suugaan isugu jirta gabayo ruwaayado heeso kuwaasi oo duuban oo waqtigooguna uu horeeyay Sidiiq Maxamed Burmad BBC Hargeysa marwalba daawadayaal waxaad nagala socon kartaan bogayaga BBC Somali Facebook oo aad ka heli karto wararkii ugu dambeeyay fadlan raadi BBC News Somali halkaasi oo aad ka helayso muuqaalo falanqayn dheeraada iyo wararka caalamka oo dhan si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka sidoo kale waxaad nagala socon kartaa BBC Somali Twitter iyo Instagram-ka wali waxaa noo soo socda oo qaybta dambe ee barnaamijka caawa iyo caalamka aad ku daawan doontaan sanad ka hor farxad ayay u ahayd dadweynaha waddanka reer Zimbabwe kadib markii xukunka uu ka degay oo la soo afjaray xukunkii Robert Mugabe balse waxaanu eegi doonaa caawa sanad kadib waxa iska bedelay xaaladda guud ahaan nolosha waddankaasi iyo dadkiisaba Zimbabwe wax yar kadib ayaanu isku soo noqon doonaa wali waxaad daawanaysaan barnaamijka caawiya caalamka ee telefishinka BBC waxaan ahay Farxaan Maxamed Jimcaale bal idin xasuusiyo qodobada wararka ugu waaweyn caawa danaha Mareykanka ayaa kow u ah madaxweynaha Mareykanka Trump ayaa sheegay inuu garab taagan yahay Saudi Arabia oo lagu eedeynayo dilkii Jamal Khashoggi dalka Afghanistan maanta waxay u ahayd maalin baroor diiq ah ugu yaraan 55 qof kadib markii lagu dilay qaraxii shalay ka dhacay magaalada xarunta ee Istanbul magaalada Kabul waxaa maanta ka soo wareegtay sanad tan iyo markii hogaamiyihii waddanka Zimbabwe Robert Mugabe uu xilka ka degay oo markaasi ugu dambeyn uu iscasilay madaxweyne ku-xigeenkiisii Emmerson Mnangagwa ayaa xilka la wareegay isagoo markaasi ay caawinayeen ciidamada waddanka Zimbabwe ballan ayuuna qaaday in waddanka uu horumar ku hogaamin doono laakiin waxaanu eegaynaa bal maxaa iska bedelay sanad kadib xaaladda waddanka Zimbabwe Aisha Afrax ayaa ka waramaysa waa dad reer Zimbabwe ah oo dabaal degayay waxay ahayd dhammaadkii maamul muddo soo jiray madaxweyne Mugabe ayaa xilka isaga degay xilligaasi waana siday u dabaaldegtay Vimbanache oo 36 jir ah xilka degistii madaxweynaha kali oo ay nolosheeda oo dhan taqaanay sanad kadib dhacdadaasi taariikhiga ah waxaan ka wareysanay Vimbanache isbedelada dhacay nidaamka cusub wuxuu abuuray in xoriyad ah oo inaan hore u haysan waa sidaas daraaddeed inaan halkan kula taaganahay oo aad i wareysanayso dadkuna aysan kala jeclayn waxaa jiro isbedelo wanaagsan laakiin waxyaabaha muhiimka ah sida lacagta dhaqaalaha maxaa yeelay waan ka hadli karnaa waxyaabaha kale balse Zimbabwean ahaan nolol ayaan u baahannahay caruurteenuna inay iskuulka tagaan ayay u baahan yihiin caasimadda Zimbabwe ayaa sidan ahayd waqtigii Mugabe ganacsato ayaa ka buuxay balse hadda oo uu jawigu degan yahay madaxweyne Mnangagwa wuxuu sheegtay guul iyo inuu keenay kala dambeyn shaqooyin iyo fursado maalgelin laakiin xukunkiisu wuxuu dhaliyay dhaqaale xumadii ugu darnayd muddo 10 sano ah iyadoo ay kor u kaceen qiimaha raashinka iyo shidaalkaba dadka dhaleeceeya ayaa ku cambaareeyay in sicir bararku uu ka dhashay deymaha aan kala cadayn oo ay dawladdu qaadatay sidoo kale madaxweyne Mnangagwa waxaa lagu xusuusanayaa rabshadahan banaanbaxyo dhacay doorashada kadib oo ay 6 qof ku dhinteen iyo eedo la xiriiro iska indhatirid
waa arrin ka soo horjeeda dabaaldegyadan dhacay sanadkii hore waxaana la isweydiinayaa in bulshada loo adeegsaday sare u qaadidda maamul kale oo naxariis daran dadka Zimbabwe ayaa wali rajaynaya ka soo kabasho horumar iyo waxqabadba dadka qaar ayaa filayay isbeddelka iyo afgambiga caqliyeysan inay keeni doonaan horumar degdeg ah markii uu Mugabe hogaamiyaha ahaa noloshu way wacnayd way adkayd balse sidan way ka fiicnayd madaxweyne Mugabe oo waqti dheer astaan u ahaa dhibaatooyinka Zimbabwe ayaan hadda xilka hayn waana in dadkii ka tuuray xukunka ay xal u keenaan dhibaatooyinka ay dad badani aaminsan yihiin inuu Mugabe abuuray wali waxaanu ku jirnaa wararkii qaaradda Afrika bal markana aynu eegno dhinaca iyo bartamaha harada Victoria oo kamid ah harooyinka ugu waaweyn qaaradda Afrika waxa ku yaal halkaasi jasiirad yar oo saldhig u ah dadka qaba albino oo ah xanuun dadka korku u cadaado sanadihii dhawaa dadka qaba xanuunkaasi waxay wadanka Tanzania ay kala kulmayeen takoor iyo waliba dil dadkaasi waxay u qaxeen hadaba jasiiradda la yiraahdo Ukerewe oo ku taala harada Victoria Suhayb Maxamed Badqas ayaa warbixintan ka diyaarisay وحل قرحة أي صوب بحيث جزيرة أوكريوي مالنتنا وحي قطع مد إفايسا ولو تاني أي سنك قسلينين وجيادة دادك قار إيه هالكان كنول أو قبا حنون دانك هيدسيداها كا أو وحياليا مقاركا تمها إيا إندها أو قرحة أي دبتو ما دام جيركو دا أي كما قنطهاي مادة اللي يراحدو ميلانين balse taa oo kaliya ma aha waxa ay ka walwal qabaan inta badan waxa ay ka baqayaan in weerar loo geysto oo xitaa ay dilaan dadka ehelka la ah sababtoo ah waxa ay aaminsan yihiin in qaybo ka mid ah jirka dadkan ay ku heli karaan nasiib wanaagsan iyo taajirnimo Eliza waxa ay timi jasiiradan 2013 kadib markii uu adeerkeed isku dayay in uu dilo balse nasiib wanaag waa ay ka soo baxsatay guriga nabad ayaan ku joogay ilaa uu adeerkay isku dayo inuu idilo si uu lacag ugu helo qaybo ka mid ah jirkayga balse nasiib wanaag waan ogaaday waxaan go'aansaday inaan dacweeyo waana taa sababta aan u imid jasiiradda Ukerewe ayaa noqotay goob hoy u ah dadka loo yaqaan albino ee maqaarkoodu cad yahay marka loo eego qaybaha kale ee dalka oo ay dadku aaminsan yihiin in biyaha ku hareeraysan jasiiradda ay yihiin kuwa ka badbaadinaya dambiilayaasha sida ay sheegayaan ururka bulshada albinada ee Tanzania ku dhawaad waxa jira 180 kiis oo weerar ah oo la diiwaan geliyay sanadihii u dambeeyay halka 76 qofna la dilay Alex Magaga waa maareeyaha hay'adda Standing Voice oo ah hay'ad ka howlgasha jasiiradan caawisana dadka qaba albinada waxa uu aaminsan yahay in ka mid noqoshada bulshada ay tahay furaha lagu caawin karo dadkan oo dadka albinada qaba ay soo dhexgalaan bulshadooda waxaan dhiirigelinaa isdhexgalka si dadka maqaarka ka xanuunsan ee midabkoodu isbedela ay ula noolaadaan bulshooyinkooda waxaa waajib ah in bulshooyinka la baro in ay fahmaan in xanuunka maqaarku waa xanuunada kale la mid yahay dadka qabana ay iyaga oo kale yihiin qof kastana uu ku dhalan karo hidasidayaal xanuunka maqaarka keeni kara dowladda Tanzania ayaa ku dadaashay wax ka qabashada arrintan ayadoo dacwad ku soo oogta dadka ka qayb qaata dambiyada balse dadka qaar ee la nool arrintan waxa ay wali dareemayaan in loo baahan yahay in wax badan la qabto bal markana haynu eegno wararkii ciyaaraha ee caawa kooxda PSG ayaa waxay noqon kartaa kooxda ugu dhibka weyn uu ka soo gaaray ciyaarihii caalamiga ahaa ee xalay dhacay ee saaxiibtinimo iyadoo labadooda ciyaartoy ee Neymar iyo Mbappe ay dhaawac uu ka soo gaareen ciyaarihii Brazil iyo Faransiiska Mbappe waxa ay noqotay in laga saaro ciyaartii Faransiisku ay 1-0 ay kaga badiyeen kooxda wadanka Uruguay waxaana uu muuqday dhaawac xanuun badan oo garabka ah in uu soo gaaray halka ciyaaryahanka Brazil Neymar isna laga saaray ciyaartii 8 daqiiqo markii ay socotay dalkiisa uu la lahaa wadanka Cameroon dhaawaca labadan ciyaaryahan ayaa jug weyn ku ah kooxda PSG oo ay ishayaan toddobaadka soo socda kooxda Liverpool tartanka Champions League inkastoo Neymar dhaawiciisa uu ku tilmaamay mid aan sidaa u halis ahayn oo uu ka soo kaban karo kalabar in ka badan dadka taageera kubadda cagta ayaa la kulmay cunsuriyad iyaga oo daawanaya ciyaaro
daraasadii ugu ballaarnayd ee mowduucan lagu sameeyo ayaa sidaasi lagu ogaaday ururka ololaha cunsuriyadda kubadda cagta ee la yidhaahdo Kick It Out oo Ingiriis ah ayaa wareystay 27,000 oo qof oo taageerayaal ah ka kala yimid 38 dal. taageerayaasha sida aadka uga deeriya mowduucan cunsuriyadda ah waxay ka yimaadeen wadamada Sacuudi Carabiya, Lebanon iyo dalka Isutaga Imaaraadka Carabta. Venus Williams ayaa waxa ay ciyaarta tenniska ah heshiis ay la gaartay gabadhaasi ciyaarta tenniska ciyaarta qoyska wiil ku dhintay gaari ay la socotay oo la yiraahdo Jerome Parson oo 13 maalmood kadib dhintay markii shilku u dhacay bishii June ee sanadkii hore. ciidamada booliska ayaa hore dambiga ugu waayay Miss Williams iyo gabar kale oo baabuurka waday. khaladkan waxa la saaray gaari markaasi la sheegay in uu shilka keenay oo la waayay. balmarkana waxaanu eegaynaa caawa abaalgudka BBC-da ee ciyaaryahanka Afrika ee sanadkan 2018. waxaa sanadkan loo magacaabay 5 ciyaartooy oo kala ah Mehdi Benatia, Kalidou Koulibaly iyo waliba Sadio Mane, Thomas Partey iyo ciyaaryahanka Mohamed Salah. caawana waxaanu eegaynaa taariikhda ciyaaryahanka u ciyaara Liverpool iyo Senegal Sadio Mane. waan jeclahay in aan kooxdayda u dhaliyo dhabtii waan jeclahay inaan u dhaliyo xilli weyn ayay ii ahayd nasiib darro ugu dambayn waxba kuma guulaysan balse ciyaarta ayaaba sidaa ah waa inaad wajahdaa waxaan xilligan rajaynayaa inaan koobo badan ku guulaysanno dhiirigelin ayay noo tahay inaan saas samayno oo guulaysanno ciyaartii finaalka ee horyaalka Yurub ayaan gool dhaliyay farxad ayay ii ahayd aad ayay natiijada muhiim u tahay waxaan gool dhaliyay ciyaartii u dambeysay koobka adduunka waxay ka mid tahay maalmihii ugu fiicnaa ilaa iyo hadda 1-0 ayaan ku hogaaminaynay balse waxay ku dhamaatay 2-2 waxay noqon kartaa maalinta ugu fiican noloshayda mararka qaarna maalinta ugu xun meel fog ayaan tiigsanaynay balse waa harnay waxay ila tahay Sadio Mane inuu yahay ciyaartooy farsamo leh weerar iyo difaac waa ciyaartooy ay farsamadiisu fiican tahay Senegal iyo Afrika oo dhan way ku faraxsan yihiin dabcan aad ayaan ugu faraxsanahay waa markii afraad oo la ii xusho ciyaartooyga sanadka Afrika ee BBC mararka qaar waxay ugu dhiirigelisaa inaan si adag u sii shaqeeyo waxaan rajaynayaa inaan mar uun ku guulaysan doono magacaygu waa Sadio Mane waxaan u ciyaaraa Liverpool iyo Senegal fadlan iigu codee inaan noqdo ciyaaryahanka Afrikaanka ee sanadka ee abaalgudka BBC muuqaal la yaab leh aan la wadaagaynaa ku dhufatay xeebaha dhinaca koonfureed ee wadanka Talyaaniga waxay qaaday dhir iyo gidaaro iyo xitaa guryaha halkaasi ku yaalay waxa kale oo jiray biyahan soo rogmaday ka hor intii aanay soo gaarin dekada Salerno oo ku taala koonfurta bari ee Talyaaniga maraakiibtan xamuulka ah ayay biyuhu kor u qaadeen oo hareeraha ku tuureen nasiib wanaag waxa la sheegay in duufaantaasi cidina aanay wax ku noqon balmarkana haddii aan xasuusiyo qodobada wararka ugu waaweynaa danaha Mareykanka ayaa koow ah madaxweyne Trump waxaana uu sheegay inuu garab taagan yahay Saudi Arabia oo lagu eedeynayo dilkii Jamal Khashoggi dalka Afghanistan maanta waxa ay u ahayd baroordiiq kadib 55 qof oo qaraxii shalay lagu dilay magaalada Kabul xusuusna wararkii ugu dambeeyay ee BBC Somali waxaad ka heli kartaa bogayaga bbc.com/somali intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa aniraahda barnaamijka caawa waad ku mahadsantihiin daawashadiina intaanu mar kale dib u kulmayno dhammaantiin waxaan leenahay habeen wanaagsan